magaalada muqdisho afarta koonaba waa laga taagan yahay si aan ugu sawiro shacbiga Soomaaliland ma garanayo aan ahayn ilaahay kuma kaaro kuma maakume waa nin aw barxadle laga fadhiyo oo toon laga fadhiyo oo degmada abaarsa laga fadhiyo oo geedeebliye Daar es Salaam laga fadhiyo afarta dhaxdooda ku jira oo la xamar baan qabsanaya aqliyadu horta waa taa wuxuu jawaabayaa madaxweyne caawa hadduu halka ka lugeeyo oo ilaa la asqoray socdo keligii aan cid la hadlaynin oo hadduu galbeed u socdo ilaa saylac lugeeyo meeshu doono saaxan kara ninkaasi uu hanjabaya marba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ku kulmay guul weyn oo masriya oo soo hoyatay iyo rag uga yimi ardul xabash dabadeedna wuxuu yidhi taloma wafdiga Jacfar baan ku farxaa mise nasriga ee beelasiiyey ma aqaan ma waxaan ku farxaa aqoonsiga aynu helay ma waxaan ku farxaa dadkaygii oo aanu muddo kala maqnayn aanu isu nimi ma waxaan ku farxaa magaaladeena adduunka ugu jeclaayay Hargeysa oo aan cagaa ku hayo way iga qasan tahay marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh mahadayba kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan soo dhaweyntan ballaaran oo uu hogaamiyey ama amray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo aan uga mahad celinaya halkan iyo xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada iyo golaha guurtida oo uu horkacayo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha wakiilada gudoomiye Giire iyo xildhibaanadiisa golahii wasiirada aan ciidamo ka maqnayn xisbiyadii mucaaradka saddexdii ee labadii xisbi mucaarad ka iyo kulmiye iyo xisbigii weynaa xisbul xaakimka ahaa ee wadani dhammaan bahdii warbaahinta aan isleeyahay maanta Soomaaliland warbaahinba ma maqna dhalinyaradii Soomaaliland haweenkii culimadii madax dhaqameedkii ugu waaweynaa dalka madax dhaqameedkii dalka ugu waaweynaa oo iyaguna maanta halkan jooga culimadii cid maanta maqan Soomaaliland qaybaha amniga ciidamada dhammaan halkan aan ka salaamaya waana uga mahad celinaya mahad kadib waxaan muddaan idinka maqnaa laakiin maan idinka maqnayna waan idiin maqnaa fariintayduna waxay ahayd mar kasta inaan dadkayga la dhibaatayn maanta waxaynu helnay wixii ugu weynaa ee aynu weligeen doonaynay oo ahaa aqoonsi adduunyadu waa 139 waddan waxayna diiday markii hore 129 waddan baa ina ogolaaday dalka ina ogolaaday waa inaa ogaataan ee dawladda Israa'iil abaal idinku leeyahay abaal inuu idinku leeyahay waa inaa ogaataan abaal inuu idinku leeyahay waa inaa ogaataan wuxuu idinka soo saaray oo inaga soo saaray oo Soomaaliland ka soo saaray aflibaax buu ka soo saaray god 12 baac buu ka soo saaray aqoonsigaas gabaygii gabay xadii wuxuu ahaa bawdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa ninkii buurta dheeriga la baxay habeenkiiba way biran lahaa bahalkii cawlaaye ninkii buurta dheeriga la baxay beerka ka ogsooni waa ognahay waa abaal gudaynaa qalbigaanu ku haynaynaa kuwa meelaha wax ka soo xarxariiqana waxaanu leenahay maanta anagu buur baanu ku tiirsanay libaaxu waraabayaashu way ku ciyaan laakiin waxa ma yeelaan Israa'iil iyo Mareykanku waa libaaxiyo cidna waxa ma yeeli karto intaasi waa mahad celin 26 Disembarna waa inay noo noqotaa maalin maalmaha kale inooga duwan oo maaha jiilkeenanune jiilasha dambana ay ogaadaan maalintaasi qiimaha ay lahayd godkii ka soo baxay xaaladdu iyo aqoonsigu qiimuhu inoo lahaa aqoonsiga waa ogtii meydkeenni baa la cashuuraa oo waxaanu ka dagaalanay 9 meyd baan anigu rikoodhkooda hayaa oo badhna la celiyey Yurub lagu celiyey badhna sabab lagu aasay sababtoo ah meydku markuu on arrival yahay lacag lagama qaado laakiin markuu baasaboor sito ee uu India ka imanayo ama Yurub ka imanayo waxa laga rabaa waa qof baasaboorka waxa laga rabaa fiisa qoladii meyd cashuurayaalna waxaan leeyahay waqtigii uu dhamaaday waxaan rabaa inaan ku daro laba qodob yar yar badin maayo waxaan arkayay
tiimkii xamar joogay oo ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud oo u soo hanjabaya Soomaaliland runtii waa ayaan darro saaxiib daar aclamu ma fiihi carabta tirada qofka gudaha guriga ku jira wuu og yahay waxa guriga dhexdiisa ka jira nin kale Soomaaliland baan ku duulaya iyo berberaan qabsanaya iyo hargeysaan weeraraya 7 tuulo oo reerkoodu dego 7 tuulo oo nuur dugle leh oo masaajid cali guduud leh oo magaaladiisa aadan yabaal leh oo raaga ceelo leh oo ceel baraf leh intaba inama yar 300 inaan cagacado aan kaba sidan baa ka qaaday magaalada muqdisho 4 koonaba waa laga taagan yahay si aan ugu sawiro shacbiga Soomaaliland ma garanayo aan ahayn ilaahay kuma kaaro kuma maakume waa nin aw barxadle laga fadhiyo oo toon laga fadhiyo oo degmada abaarsa laga fadhiyo oo geedeebli Daar es Salaam laga fadhiyo afarta dhexdooda ku jira oo la xamar baan qabsanaya aqliyadu horta waa taa wuxuu jawaabayaa madaxweyne caawa hadduu halka ka lugeeyo oo uu ilaa laas qoray socdo keligii aan cid la hadlaynin oo hadduu galbeed u socdo ilaa saylac lugeeyo meeshuu doono seexan karaa ninkaasi uu hanjabaya waxaan rabaa inaan ku idhaahdo waxay meel walba 3 kelmadood ayay inanka yare cafarta ah Africa Unionka jooga loo soo dhiibaa oo la yiraahdaa unity sovereignty territorial integrity oo 3 eray ugu edabta daran ummadani ayaheeda ka tashatay charterka qaramada midoobay chapter 2 bay ku taala article 2 bay ku taala self determination cid khasbi kartaa ma jirto waxaan leenahay unity-ga iyo sovereignty-ga iyo waxa doonayso xasanow calooshaada ku jirtaa nin baa berigi xajka loo lugayn jiray sida xasan iimaanla ayaa xajka markii loo lugayn jiray hooyadii xajisiiyay markuu hooyadii xajisiiyay ayaa saxariir ku dheeraaday oo dabadeedna wuxuu isiri lawa nin iimaanle war yaana dibana hooyada cun hooyadii buu qasha وسميركii buu cabay markuu ka dhargay buu isii wallahi hooyada waad cuntay maxaad sameeyay dabeedna la fihi dhabarka ayuu taxday qoortuu gashaday dabeedna meelahaas la maray ooy la fihi hooyadii sida xasan sheekh wuxuu sida la fihi midnimada la fihi Soomaalinimada yaani ninka meydka cashuuraya ayaa hadhowd ku oranaya unity iyo midnimo ninka meydkiina cashuuraya wallahi waqtigii uu dhamaaday waana laga gudbay shacabka Soomaaliland halka waxa ku soo gaadheen midnimo wada jir waxa ku soo gaadheen nabadda shacabka ilaashada hadda aragtaan meel amni darra ka jirto shacabkan amniga ka shaqeeya hadda aragtaan meel amni darra ka jirto shacabkan qayb ka ahayn amniga waxaan idin kula dardaarmayaa dawladda idin aqoonsadana weyneeya sababtoo ah waxa la doonayaa inay baabacdaan والله انت دش افكد كايدي ميديا كايدي اي برلمان كايدي waxa ka 100 jeer ka badnay inta aan hoos ugu yiri iyadoo 12 xildhibaan fadhiyaan baan la garnaqsaday xasan oo ku yiri war adigii yaqaanay Soomaaliland ee Hargeysa u soo qaxay joogi jiray ee hotelkii yaray halka u deganaan jiray Ibrahim Dheere u dhawaa ayaa sidaa u dhaqmayay bal kuwan kale aan naga garanayna ka waran dulmiga ku taranto dacwooyinka badan boqolbaa ku daba jira ma hayso oo kaliya marka waxa la shacabkana amnigiina ilaashada midnimadiina ilaashada wada jirkiina ilaashada xaasidku badan yahay maalinta afrina madmadoobintay meel u baxay yiraahdaan jabhad baanu samaysanay sab ya alla bari ba xamar la dhigaa iska daayay darada ragga sameynaya iska daayay wallahi alla bari baa la dhigaa maalinta afar meel sawir laga soo qaado afar qof oo taagan oo la jabhad baanu nahay xaasidnimadu way dhaaftay halka ay moodayseen ruushka lagu xanta xaasidnimo waxa la yiraahdaa laba nin oo ruusha ayaa laba sac lahaa dabadeedna ninna sac badiyuu lahaa sida Soomaaliland ninna sac dhoolo abuu lahaa sida qolada xamar dabadeedna maalintii dambe halku Ilaahay sac wanaagsan weydiisan lahaa ayuu gacmo cirka u taago wuxuu yiri Ilaahay oo saaxiibkay sac ka dil waxaasidnimada halka ugu dambaysa marka runtii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Soomaaliland waa la ixtiraafay waana la ixtiraafi doonaa wayna iska soo daba dhacaysaa
ووضع فرنتي وضع ميال لقول نقضانا قدوميها ينوصل حلي الدورة ميال لقول نقضانا بتشرتو سواء نقول بنرجعنا أنا أقول إذا كم يتبانا هاي هرنا إذا كم يتبانها ولا جينا إذا كم يتبانا وحكوسا جوجوين هذا الكي نجيب محفوظ وحي الواهل كيف اللي يقول جورجو واهل كي وحي جورجو وماشى أنا ديمو بهاترين وماشى وحكوسا جوجوين يا هستي هرجيساي نفطي داي هل بولي شركي داي هل كنا بدي تاليو هو يجي حرية داي إن كستر هالدوري متكاهب الحين مو قرن هنكيجي همي حصوصيو هبشان كنولا بدل كاجي مان هلين ويا بهلي كرا هقبل كبيه يو كما بقان هردية تشيف ويا كبقان كرا أدون بيهور كاجنا هرجيساي إني كنا هردوغ لاي هل كنا بدي تاليو هو يجي أقان تاي مالك قروح ديو مالك قروح ديو حرق يدرتادي يا نصو هيامي هرجيساي ما نبضع